dabaaldegga munaasabadda habeenka kowda luuliya oo ah habeenkii ay xornimada qaateen gobollada koonfureed ee dalka isla markaana ku suntan midowgii gobollada waqooyi iyo koonfureed ee jamhuuriyadda Soomaaliya. halkan ayaa la saaray oo ah madaxtooyada qaranka calanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana saaray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. dabaaldegga habeenkan ayaa isqabsaday guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoona si weyn ay ugu caweynayaan ama ugu dabaaldegayaan guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. sida aad arkaysaanba waa dabaaldegga munaasabadda habeenka kowda luuliya oo wax yar ka hor halkan la saaray calanka jamhuuriyadda saacadu markii ay ku dhacday 12kii saqdhexe oo ay saareen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka isla markaana uu salaan sharaf ku qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. dabaaldegga ayaa weli si qurux badan uga socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoona cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saareen calanka jamhuuriyadda. damaashaadka iyo dabaaldegga habeenkan weyn ee kowda luuliya ayaa socda. habeenkani waa habeenkii u horreeyay ee calanka jamhuuriyadda laga taago ciidda Soomaaliya gaar ahaan gobollada koonfureed magaalada madaxda dalka ee Muqdisho ayaa laga taagay. sidoo kale habeenkan ama maalinta kowda luuliya waxay ku aastaysan tahay midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee dalka oo ay kala gumaysanayeen